marka qaarkood miska dhex maqasha cod ku leh hawshan aad ku jirtaa maaha mid kugu habboon oo ku guuleysan karto. ma maqashaa oo ma dareentaa cod ku leh ma awoodid oo ma qaban kartid waxa ay qeyrka qabanayaan. codkani ma ku yiraahdaa ma awoodid ama se macquul maaha inaad guul gaadhid. haddaba codkani waa dhow gudeedka taban ama se waxa luqad qalad lagu dhahdo negative inner voice. codkani waxa uu burburiyaa mustaqbalka qofka uu haleelo. qofka waxa uu diidaa inuu hawl galo. qofka waxa uu ka joojiyaa inuu la tartamo qeyrkii oo uu ku kaco wax wanaagsan oo naftiisa horumarinaya. codkani waxa uu saameyn weyn ku yeeshaa dhammaan nolosha ama se qaybaha kala duwan iyo dhinacyada kala duwan ee nolosha qofka, taasoo u geysto saameyn laxaad leh oo taban, kuna keeni kartaa inuu noqdo qofkaasi qof nolosha ka dhaca ama se noqdo qof wax soo saarkiisa shakhsiyeed uu yar yahay. codkani waa fikir khaldan oo saameyn ku leh noloshaada. codkani inuu samaysmo waxay qaadatay muddo ama se sanado badan, kaas oo qayb ka ahaa noloshaadii hore ee caruurnimada. codkani waxyaalaha ugu badan ee sameeya waxaa ka mid ah dhibaatooyin qoys oo qofku ku soo koray. sidoo kale waxaa ka mid ah in qofku waqtigii uu ku jiray dugsiga hoose dhexe ay saameyn ku yeesheen asxaabtiisa ama se jiilkii ama ficiisii uu la dhiganayay classku, taas oo ay inta badan yeesi jireen qofka ama se u arkay inaanu ahayn qof muhiim u ah iyaga. waxa kale oo keena mararka qaarkood adigoo nolol wanaagsan kusoo koray in ay dhacdo in waqtiga aad shaqada gasho uu ku haleelo isku buuq badan ama se waxaan la dhahay stresska, taasoo saameyn ku yeelan karta maskaxdaada kuna samayn karta codkan khaldan ama se codkan taban ee noloshaada saameynta ku yeelan kara. codkani inta badan marka uu samaysmayo maaha mid la dareemo, waayo mararka qaarkood waxaa dhacda ilmuhu marka uu yar yahay in waalidkii hadallada ay ku leeyihiin ay ka qayb noqon karaan inuu hadalkaasi ama se codkaasi ku samaysmo maskaxdaada. tusaale ahaan haddii ilmaha yar marka uu yar yahay la yidhaha waxaan ma qaban kartid, sidan ma samayn kartid, waxaan jooji sidaa ha samaynin, taasi waxay ku saameyn ku yeelan kartaa noloshiisa dambe. waayo markasta oo hadalka lagu celceliyo waxay u dhaadhacaysaa qofka caqlul wacigiisii ama se caqligiisii qarsoonaa, taas oo codkan u sahasha inuu ku samaysmo isla maskaxdaas. hadhow marka weynaadana ku soo baxda saameyn weynna ku yeelata dhammaan noloshiisa, una saamici kari weyda inuu qofku sameeyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo u horseedi lahaa inuu la tartamo qeyrkii oo uu horumar sameeyo oo uu noloshiisa ka ciyaaro doorkii uu ku lahaa isagu. cabsida guuldarrooyin aad ka dhaxashay isku dayo aad samaysay waxay maskaxdaada ku samayn kartaa fikirkan khaldan. haddaba codkani ma yahay mid ay macquul tahay in la iska daweeyo ama se laga saaro maskaxda? haa, waa macquul, waayo wax kasta ama se wax kasta oo jira ama se xanuun kasta oo jira waxaa macquul ah in la daweeyo. si ha fikirkan khaldan ama se codgudeedkan taban ee kaa dhex hadlaya aad uga saarto maskaxdaada, waxaad qaadi kartaa tallaabooyinkan. number 1, in aad fahamto noloshaada. wax kasta oo adduunka yaalla ama se hawl kasta oo la hayo waxaa ugu horeeya ee laga qabtaa waxa weeyaan inuu noqdo wax la fahmi karo. marka fahamku waxaanu odhan karnaa waa furaha shay kasta oo dunida dul yaalla. ujeed buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu adduunyada inoo keenay, ujeedkaas oo ah inaynu caabudno. waa kii qur-aankiisa Ilaahay kula subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. marka ujeedka ugu horeeya ama se ujeedka ugu weyn ee adduunyada laynoo keenay waxa uu yahay inaynu Ilaahay raali gelino subxaanahu wa tacaala oo aynu caabudno. noloshaada aad fahamtaa waxa ay ku sahlaysaa in aad ka gudbi karto carqalad kasta oo ka hor imanaysa, inaad ka gudbi karto oo aad daafi karto oo aad kormari karto dhammaan carqaladaha iyo waqtiyada adaga ku xeeran noloshaada.
marka in aad fahamto noloshaada guud waxay kuu sahli kartaa in aad la dagaalanto oo aad hoos u dhigto ama si aad yareyso heerka codgudeed ee maskaxdaada ka dhex hadlaya kaasoo ah mid khaldan. in aad fahamto noloshaada waxay kuu sahlaysaa in aad garan karto waqtiga uu codkani kula hadlayo ee uu kaa joojinayo hawshaada aad wado ama se guulaha doonaysa inaad gaadho, iyo waqtiga aanu kaa dhex hadlayn ee aad ku taagan tahay go'aankii saxda ahaa ama se howlqabadkii ugu wanaagsanaa ee ku horseedayay midho dhalka wanaagsan. waxaad dareemi kartaa in marka aad howlgal aad samayso ama astra hawl qabo oo codkani kula hadlayo oo ku oranayo ma qaban kartid ama se awood ma lihid inaad qabatid, marka waxa habboon oo wanaagsan in aad dhegaysanin codkan, waayo waxa jira cod kale oo kula hadlaya laakiin aad u naaqusan oo kula wad qaban kartaa. codkani inta badan qofka waxa uu ku bataa marka uu qofku noqdo qof bilaa kalsooniya, marka taas waxay aad u naaqusaysaa oo hoos u dhigaysaa codkii kale ee tognaa ama se wanaagsanaa ee ku sahlayay in aad horumar gaadho, kuna oranayay kuna caawinayay kuna oranayay wad awoodaa. marka ha dhagaysanin codkan taban ee kula ma awoodid, laakiin markasta oo ku dhahdo ma awoodid oo ma qaban kartid u jawaab celi oo isku day inaad siiso jawaab sax ah oo ah waan awoodaa. sidoo kale codkani marka uu ka joojinayo howlqabadka ama se waxaan aad wado in aad qabato waxa uu ku siinayaa daliilo yar oo daciif ah kuwaasoo ka gudbi kartid. markastoo ku dhahdo ma qaban kartid waxaad weydiisaa su-aasha ah sidee baanan u qaban karin, maxaa sababaya inaanan qaban karin. marka taas waxaad dareemi kartaa inuu codkii aamusay, waayo waxa uu waayey jawaab celin uu ku sameeyo. sababtoo ah wuxuu adeegsanayay markii hore hab ahaa inuu ku dhahdo waxaa ma qaban kartid oo kaliya taa ee aanu ku siinin sababta aad u qaban kartid. xataa haddii uu ku siiyo sababta waxa uu ku siinayaa sabab aan macquul ahayn oo daciif ah. marka ha dhagaysanin codkan markasta iska dhagatir kuna dadaal in aad maqashid codkaaga kale ee wanaagsan ee kule waad qaban kartaa. bal waxaad u fiirsataa marka aad tukatid salaad khushuuc leh oo aad awoodda saarayso cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ee una tukanayso si niyad leh. waxa aad dareentaa degnaan badan, waxa aad dareentaa in naftaadu ay tahay naf wanaagsan. sidoo kale waxa aad dareentaa in aad tahay qof haysta dhammaan nimcooyinkii wanaagsanaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ku galladay waana dareentaa. salaad khushuuc leh inaad tukataa waxa ay yareynaysaa codkan taban ee gudeed, waxaanay kuu sahlaysaa inuu kor u kaco, waxayna kuu sahlaysaa inuu kor u kaco codka gudeed ee wanaagsan ahana codka togan, kaasoo ku sahlaya kuna oranaya wad qaban kartaa wax kasta. marka salaad khushuuc leh inaad tukataa waxay kuu sahlaysaa in uu codkani hoos u dhigmo, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa awooda inuu qalbiyadeena iyo maskaxdeennaba ka saaro dhammaan wixii xun. marka haddii aynu awoodda saarno in aynu cabsida ilaahay u soo jeesano oo aynu salaad khushuuc la tukano markastana digriga ku dadaalo, waxa inoo sahli kartaa oo ilaahay inoo fududaynayaa in aynu noqono dad nolosha ka gaadha libin wanaagsan, aakhiradooduna noqoto mid wanaagsan. marka ku dadaal in aad ka dhigato salaadaha salaad khushuuc leh oo aanay noqonin salaadaha degdeg ku tukato iyo bilaa khushuuc. markasta ku dadaal inay salaadaadaas ahaato salaad u tukato si degan oo khushuuc leh. taas waxay ku saamixi kartaa in aad ka kormarto oo aad ka guulaysato codka khaldan ee ka dhex hadlaya ama se fikirkan khaldan ee ku samaysmay maskaxdaada. inaad hadaf yeelataa waxay ku saamaxaysaa in aad noqoto qof hela dhiirigelin. inaad dhiirigelin heshaana waxay ku saamaxaysaa in aad hesho firfircooni maskaxeed. firfircoonida maskaxeed waxay ku dhaxalsiinaysaa in codkii khaldanaa ee maskaxdaada ku dhex samaysmay uu noqdo mid hoos u dhigma oo ka awood bato cod kale oo kale waxbaad qaban kartaa, cod kale oo ku dhiirigelin karaa markaad xataa niyad jabto ee carqaladuhu ka hor yimaadaan. marka ku dadaal markasta in aad yeelato hadaf cad oo aad samayso qoraal ah inaad qorto dhammaan ahdaafta aad nolosha ka leedahay. sidoo kale aad si wanaagsan u qeexdo oo aad u cadayso, waayo taas waxay ku siin kartaa inaad yeelato aragti fog oo mustaqbal.
taasoo aad ku arki karto halka aad doonayso beritole inaad gaadho iyo waxa aad doonaysid inaad noqoto. joogtayntu waa waxa ugu muhiimsan nolosha hawl kasta oo aad qabanayso, waayo markasta oo hawl gasho haddii aanad joogtayn karin hawsha waxaad noqonaysaa qof ka soo noqda halkii uu taagnaa shalay toole. marka inaad joogtayso dhammaan caadooyinka wanaagsan ee aad samayso waxay kuu sahlaysaa inaad ka gudbi kartid codkan. inta badan codkani qofka waxa uu ku dilaa maadaama uu sababayo inuu qofku dareemo kalsooni darro, in uu ka go'o inuu la xiriiro asxaabtii ku hareereysnayd ee qeybkii ahayd. marka waa inaad samaysataa asxaab wanaagsan oo kula aragtiya nolosha, kuwaas oo kuu saamixi kara inaad hesho dhiirigelin iyo firfircooni dheeraada, iyo inaad hesho inaad haysato garab aad nolosha ku hawlgeli kartid. inaad samaysato caadooyin wanaagsan oo waxtar ku leh waxay ku sababi kartaa inuu codkani ka yaraado, sida inaad samayso jimicsi, waayo jimicsigu waxa uu jidhka siiyaa awood, sidoo kale waxa uu kor u qaadaa heerkaaga firfircooni iyo caafimaad. sidoo kale in aad caawiso qof waxay ku siinaysaa kalsooni dheeraada iyo dhiirigelin, waayo waxaad dareemaysaa inaad tahay qof la tirsan karo, waxaad dareemaysaa inaad tahay qof awood leh uu ku caawiyo dadka kale ee ka hooseeya. sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn in aad samayso caado wanaagsan oo wax akhriska, waayo wax akhrisku markasta waxa uu ballaariyaa aqoontaada, waxa uu ballaariyaa xogta aad haysid, sidoo kale waxa uu kuu saamaxaa in aad hesho kalsooni dheeraada maadaama oo aad helayso aqoon. ku dadaal markaa in aad joogtayso dhammaan caadooyinka wanaagsan, waayo nolosha gebigeeduba kama soo hadho joogtayn la joogteeyo iyo dabagal lagu sameeyo.